xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa maanta dib ugu laabtay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. madaxweynaha dalka oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa Dhuusamareeb ayaa kulamo gaargaar ah waxa uu la yeeshay odayaasha dhaqanka. kadib bixitaanka madaxweyne xasan waxyaabihii ka soo baxay kulamadaasi waxaa warbaahinta uga warbixiyay afhayeenka guddiga shir gudoonka Cabdiladiif Cabdullaahi Warsame. runtii madaxweynuhu waa maalintii maanta halkan ka tagay waa maalintii saddexaad oo joogo Dhuusamareeb ay ahayd ilaa xalay iyo habeen horeetana uu ku hoyday. waa arintaas runtii aad baan ugu faraxsan oo arrin ku tusaysa nabadgelyada meesha ka jirta iyo sida habboon ay meeshani munaasab ugu tahay wax walba. intaas kadib madaxweynuhu runtii halkan waa dinkii ogaa oo ay beeluhu ku dhawaaqeen shirki dib u heshiisiinta inuu dhamaaday shirki maamul sameeyntana loo gudbay oo halkan laga dhigay marka laga fiiriyo qodobo fara badan oo ay xiyeen sida nabadgelyada oo hadda waad arkayseen madaxweynaha inuu maalintii saddexaadna joogay laba habeen ku bariyay meeshan hadda ka horna uu yimid prime ministerku yimid oo ku hoyday ciidamada amisom inay joogaan kuwii dawladdu inay joogaan taas qodob ay ahayd qodob kale oo ku cilayeen wuxuu ahaa shirka halkan in lagu qabto oo muhiimka u ahayd in dadkii halkan ay ku diyaarsan yihiin beelihii oo dhan dhamaantood intoodii badnayd oo shirka dib u heshiisiinta ka qayb galay kan kale inay u gudbaan ay u fududahay waxa kale oo muhiim ah ayagana tixgeliyeen dadku inay hadda u diyaarsan yihiin barnaamijkaas oo aysan jirinin wax mucaarado ku saabsan in loo gudbo qodob kale saa darteed rabitaanka dadka ay iyadana ay xiyeen waxay kale oo ay xiyeen deegaanka magaaladan oo leh dhammaan agabyadii laga maarmaanka u ahaa qabashada shirka maamul sameynta sida deegaanadii holalkii shirarka adeegyadii kale oo looga baahnaa waxyaabahaas oo dhan bay ku eexiyeen go'aanka ay qaateen madaxweynuhu halka markuu yimid runtii asaga aragti kale uu qabay oo ahayd maadaama hadda ka hor uu sheegay inaan hore loo ballan qaaday in shirka maamul sameynta cadaalad lagu qabto codsi wuxuu watay in laga aqbalo codsigaas oo warmurtiyeedkaas odayaashu ay dib u eegaan oo dib ugu noqdaan dood taas bay ku dheeraatay runtii ilaa iyo labadaas habeen iyo saddexdaas maalmood madaxweynuhu joogeen arrintaas baa laga wada hadlayay ujeedka wada hadalkaasina wuxuu ahaa sidii hal mid buu ahaa oo ah in tala midaysan la wada qaato hal waxna loo go'aansado la isku raacsan yahay welina tii dhinac uma dhicinin oo sidii bay u taagan tahay madaxweynuhu wuu baxay inuu soo noqdana waa suuragal marka hawshaasina waa sidaas waay marka dadku inay saa ula socdaan afhayeen Cabdiladiif ayaa shaaciyay in shirka maamul sameynta gobolada dhexe uu ka sii socon doono Dhuusamareeb shirka sidiisii uu taagan yahay odayaashuna mowqifkooda kama tanaasulinin welina ii sheeg adiga arkaya dhammaan ergadii oo dhan iyo dadka ka soo qayb galay shirku ay joogaan marka wax xirmima ay jiraan wada hadallada maalmahan xoog la saaray madaxweynaha odayaasha dhexmarayay laakiin mowqifka odayada waa sidoodii waay shirkuna waa sidiisii waay lama oga tilaabada tan xigi doonto maadaama shirarkii odayaasha dhaqanka iyo madaxweynuhu aysan jirin wax natiijo rasmi ah oo ka soo baxday